maanta ayaa hotelka Rays ee magaalada Boorama lagu soo gabagabeeyay tababar socday muddo 2 cisho ah oo lagaga hadlayay doorka ay haweenku ku leeyihiin cadaaladda kana qayb qaadanayeen 40 xubnood oo ka kala socda culimada ururada haweenka ardayda wax ka barata magaalada Boorama iyo garyaqaano kulankaasi waxa xidhitaankiisa ka hadlay agaasimaha ururada qareenada haweenka Soomaaliland Nimco Cali Xirsi waxayna sheegtay in xafiiska ururkooda uu ku yeelan doono magaalada Boorama iyo gobolada kale ee Soomaaliland aan xafiiska ku yeelano gobolada magaalada Boorama si aan ugu soo fidino adeega legal aid ama caawimada sharci aan siino ee lacag la'aanta ah ee aan bulshada siino si ay wax uga bedelo tacadiyadka iyo dhibta haysta haweenka ayaguna halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta Xamuud Axmed Nadiif iyo isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Farduusa Sheekh Saciid Sheekh Xasan waxayna ka warameen haweenka doorka ay cadaaladda ku leeyihiin waxay hadii uu hawshan soo noqnoqtay oo arida maanta laga hadlayo in badan haynayd xuquuqda dumarka taasi oo laga eegayo sharciga islaamka waxaan jeclahay dadkeenu inta badan islaamka family looga ma yaqaanaan ama waxay hay'adaha sharcigani ku yaala guurka kama warqabno bulshada islaam oo inta ku soo afkirsata islaamna way leeyahay xuquuqda iyo waajibaadka sawjka iyo sawjada ay leeyihiin total ma naqaan doomiyaha ururka haweenka ee Now ee gobolka Awdal Caashi Cabdullaahi Cilmi Kaluun waxay ka warantay in haweenka cadaalad ugu heli karaan inay rag u ogolaadaan xuquuqda Ilaahay siiyay marka inta aan hore u aragsidaa inanta yar ee da'da yar leh ay u sheegaysay iyo waxay wanaagsan inaan maalinba koox aan inteena inaga wada kaashanayna ururada ka wada qayb galnay aad bay wanaagsan tahay sababtoo ah waxa weeyeen waa wixii bulshadeenu ay ku dhaqmaysay waa tiirkii asaasiga ahaa ee haday haweenka iyo ragaba ay tahay labada gender oo is wata wixii fiican iyo wixii xun in la kala safeeyo oo la kala saaro inta aan aqoonna loo saaro waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka socday ka qaybgalayaasha ayaa soo dhaweeyay in doodaha noocan oo kala la joogteeyo shalay markan meeshii minay laakiin maanta waxaan bartay wax aad iyo aad iga farxinay waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan maanta meesha ka faa'iideystay waxaan rajaynayaa waxaan maanta ka faa'iideystay meesha dad badan aan wax ku faahfaahin karo